kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada warka midnimo media qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah xildhibaano ka tirsan Puntland oo sharci darro ku tilmaamay xariga howlwadeenada dhismaha wadada Boosaaso iyo war culus oo ay ka soo saareen maxaa ka jira mooshinka la sheegay in laga gudbay madaxweynaha Puntland dad isku qoys ah oo lagu dilay deegaan ka tirsan gobolka Mudug iyo waxyaabaha loo aaneynayo dilkaas dhimasho iyo dhaawac ka dhashay shil gaari oo ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe ciidamada dawladda oo howlgal ka wada degmo ka tirsan gobolka Hiiraan Jubbaland oo ku dhawaaqday liiska odayaasha soo xulaya xildhibaanada cusub Donald Trump oo codsi u diray haweenka laga tirada badan yahay ee ku jira Congress-ka iyo wararka ku aadan in kooxaha Real Madrid iyo PSG ay isdaafsanayaan xidiga Bali iyo Neymar iyo waxa uu ka yiri tababare Zidane daawadayaal qodobadaas waxay ahaayeen kuwa ugu doorkaran warkeena haatan ku soo dhawaada ayaga faahfaahsan oo idin la diyaara Sagal Yusuf Xaaji Sagal Cidoon iyo waliba Ahmed Xasan Ramaas 10 mudan ayaa ka tirsan xildhibaanada dawlad goboleedka Puntland ayaa si wadajir ah u cambaareeyay xariga uu maamulkooda kula kacay samafalyaal si tabarucaad ah ugu shaqeynayay laamiga dhexe ee magaalada Boosaaso xildhibaan Saadaq Abshir Garaad oo kamid ah mudanayaasha baaqa jeediyay ayaa sheegay in sida ku qoran dastuurka Puntland aan qofna loo qaban karin loo xiri karin loona ciqaabi karin fal markii uu shakhsigu galo aan dambi ku ahayn sharciga dastuurka Puntland ma qabo xeer ay golayaasha dawladdu ansixiyeen ma jiro mid uu baarlamaanka uu jeediyeen ma jiro in dhaqaalaha dawladda Soomaaliya bulshada ugu deeqdo ay dambi tahay ciqaabna looga dhigo maxkamadna lagu geynayo ninkii sharciga haya annagu noo keenaya ayuu yiri xildhibaan Saadaq xildhibaanada ayaa waxay si wadajir ah ugu baaqeen maamulka Puntland in sida uu dhaqsiya badan loo sii daayo dadka xiran iyagoo sharci darro ku tilmaamay in dambi laga dhigo howlaha samafalka ah iyo dhaqaalaha ay bixisay dawladda federaalka guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka Jubbaland ayaa waxay ku dhawaaqeen liiska magacyada odayaasha dhaqanka ee soo xulaya xildhibaanada baarlamaanka dawlad goboleedka Jubbaland odayaasha xulaya xildhibaanada maamulka Jubbaland ee la shaaciyay ayaa tiradoodu tahay 135 oday iyagoo matalaya dhammaan beelaha ay ka kooban yihiin shacabka deegaanka Jubbooyinka waxaana odayaashan laga rabaa inay muddo kooban ku soo xulaan xildhibaanada Jubbaland oo soo dooran doonaan madaxweynaha cusub ee maamulkaas wararka laga helayo degmada Jariban ay ka tirsan gobolka Mudug ayaa waxa ay sheegayaan in maleeshiyad hubeysan ay weerar ku qaadeen dad xoolo dhaqato ah oo ku sugnaa deegaanka Docolo ee koonfurta magaalada Balibusle ee degmada Jariban gobolka Mudug goobjoogayaal ayaa waxay u sheegeen warbaahinta ka howlgasha deegaanada Puntland in xilliga la weeraray dadkaas ay ku sugnaayeen hoygooda isla markaana maleeshiyadka hubeysan ay dileen 3 ruux oo isku qoys ah halka mid kalena ay dhaawaceen dhacdadan oo dhacday habeen ka hor ayaa daba socotay weerar qasaaro dhimasho iyo dhaawac ah geystay oo dhawaan ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Mudug waxaana arintan sidoo kale loo aaneynaya arrimo la xiriira aanooyin qabiil shilkan gaari ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Gumarow oo kamid ah deegaanada hoostiga degmada Warshiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana ka dhashay qasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac shilka ayaa yimid kadib markii gaari nooca xamuulka qaado uu ka ambabaxay magaalada Muqdisho kuna sii jeeday deegaanka Masagawaye ee gobolka Galgaduud uu rogmaday xilli uu marayay tuulada Gumarow waxaana goobjoogayaal ay sheegeen in hal ruux uu ku geeriyooday 6 kalena ay ku dhaawacmeen dadkii ku waxyeeloobay shilkaasi gaari ayaa waxa la keenay isbitaalka Kiisanay ee magaalada Muqdisho si loogu daaweeyo iyada oo gurmad balaaran ay u sameeyeen dadka tuulada Gumaray ee gobolka Shabeellaha Dhexe wararka laga helayo degmada Buluburta ee gobolka Hiiraan ayaa waxay sheegayaan in ciidamada dawladda Soomaaliya ay halkaasi ka wadaan howlgal xoogan howlgalkan ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii shalay qof la sheegay inuu shacab ahaa lagu dilay duleedka degmada Buluburta iyadoo raggii ka dambeeyay dilkaasi goobta ay ka baxsadeen dadka deegaanka ayaa sheegay in ciidamada dawladda ay wadaan howlgal xoogan oo lagu raadinayo dadkii ka geystay dilkii shalay ka dhacay duleedka Buluburta
wararka ayaa intaa waxa ay ku darayaan in howlgalka lagu qabtay dad u badan dhalinyaro kuwaas oo ciidamada ay ka shakeen isla markaana waxaa la geeyay saldhigga ciidamada ay ku leeyihiin gudaha degmadaas macalinka kooxda kubadda cagta ee Real Madrid Zidane ayaa sheegay inuusan marnaba dooneynin inuu hoos u dhigo xushmada uu u hayo xidiga reer Wales ee Gareth Bale kadib markii uu si cad u sheegay in la gaaray xilligii uu bixi lahaa xidigan kadib kulankii saaxiibtinimo ay dhawaan la ciyaareen Bayern Munich inta lagu gudo jiray shirka jaraa'id uu kaga hadlayay tababare Zidane kulanka saaxiibtinimo ay wada ciyaari doonaan kooxaha Real Madrid iyo Arsenal caawa saqda dhexe ayaa waxa uu sheegay mararka qaar luqadayda Spain ma cadda laakiin waxa noqon doona mid aad u cad uma muujin ixtiraam darro qof walba gaar ahaan haddii uu yahay ciyaaryahan mar walba waxaan jira dhankooda kooxda waxay ka shaqeysay bixitaanka Bale Gareth Bale ma uusan ciyaarin kulankii Bayern Munich maxaa yeelay sidaasi ayuu doonayay waa ciyaaryahan Real Madrid ah waxna isma bedelin wuxuuna tababarka u sameyn doonaa maanta si dabiici ah brina waa arki doonaa waxa dhaca ma muujinin inaan ku qanacsaneen Gareth Bale wuxuu ciyaari karaa kulanka Arsenal intaas kadib Zidane ayaa la weydiiyay suurtagalnimada ay kooxda Real Madrid iyo PSG isku dhaafsan karaan xidigaha Bale iyo Neymar wuxuuna ku jawaabay waxba kama ogi waxa arintaasi ku saabsan kama jawaabi karo guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa war wixii dal idaafaha caalamka naga soo gaaray oo aad si toos ah ugala socoteen Midnimo Media warka waxa si wada jira waqrinaya inagoo kala ah Sagal Yusuf Xaaji Sagal Cudoon iyo waliba Axmed Xasan Ramaas intayn ku kulmi doono war mid kala nacayna sida iyo nabadgelyo